munaasabad balaaran oo lagu duceynaya Allah ka raali noqde Sheekh Xaaji Daawud Cilmi Cariif oo axadii la soo dhaafay ku xijaabtay magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya ayaa caawa lagu qabtay magaalada Makiina Road ee dalka Kenya. wariyaheena Hanad Cali Guuleed ayaa warkani faahfaahinaya. munaasabadan ayaa waxaa si wada jir ah u soo agaasimay culimada diinka waaweyn ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca ee magaalada Tambarakeysan Makiina Road ee wadanka Kenya. munaasabada waxaa lagu qabtay xarunta taskiyada iyo daraasaadka culuumta islaamka ee Al-Mahmudiya. kulanka munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan culimada diinka magaalada Makiina iyo waliba ardayda wax ka barata xarumaha kala duwan ee diiniga ah ee ka howlgala magaalada Makiina Road. culimada diinkii iyo dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadan ducada ahayd ayaa cishihii kadib salaad janaasa halkaas uga soo tukaday Allah ka raali noqday Sheekh Xaaji Daawud Cilmi Cariif waxayna Ilaah uga baryeen inuu hoygiisa ka yeelo jannadii firdawsa ahayd iyo la jirka nabigiisa Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. معلم آدم إبراهيم محمد oo loo aqoon yahay muallimul Makiina ayaa janaasadii kadib halkaasi duco ka mariyay. yaa Xaaji Daawud somadku way leeyahay waaye somad haliira sakaraad waa moodiso aashana Allah moodi ilaahay oo qabrigiisa nuur ka dhig ilaahay qabrigiisa nuur ka dhig ilaahay awlaad meesha lagu dhaafar wax barako la ka dhig kuwa diinta u hogaansama ilaahooda caabudo status camalkooda asahan ilaahu ka dhig sidii aabahooda oo kala qalbi saafi ah ilaahu ka dhig. dabadeedna waxaa xigsaday xilqo weyn oo dikri Axmediye ah oo si wacan la iskula jiibiyay. qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca ee munaasabada ka soo qayb galay oo la hadlay Al-Mahmudiya TV ayaa tacsi u diray guud ahaan Ahlus Sunnah wal Jamaaca gaar ahaan ahladii iyo jamaacadii qaaska ahayd ee uu ka xijaabtay Sheekh Xaaji Daawud Cilmi Cariif Allah ka raali noqday. culimada iyo saadaadka kala ah al-Allaamatul Murabbi as-Sayyid Sheekh Maxamuud Nuur Sheekh Cabdiraxmaan Sayyid Yuusuf Allah dhawre al-Caalimul Allaama Sheekh Cabdiraxiin Sheekh Xasan Qoryoole Dr. Khaliif Maxamuud Cabdi Cilmi Khaliif Qaadiriya al-Caalimul Allaama Sheekh Maxamed Irshaad Sheekh Yuusuf Ali al-Caalimul Allaama Sheekh Cabdinuur Cabdullaahi al-Caalimul Allaama Sheekh Cabdullaahi Cali Aadan Sheekh Cabdullaahi Marki al-Caalimul Allaama Sheekh Axmed Nuur Sheekh Maxamed Sheekh Cabdi Tima Madoobe ayaa ka mid ahaa culimadii waaweyneed ee halkaasi tacsida ka dirtay. waxaan u tacsiyadeynaa nafsadayna iyo ahbaabteena meel kastoo ay joogaan iyo ahlu turuq suufiya iyo ummadda muslimiinta oo idil caamatan geeridii naxdinta lahayd ee ku timid sheekheeni weynaa Xaaji Daawud Cilmi Cariif wuxuu ahaa abul masaakiin xaqiiqatan abul masaakiin ayuu ahaa ilaahay raxmadiisa ha siiyo. runtii tiir weyn baa naga dumay rugni weyn baa dumay geed weyn baa dumay ilaahay waxaan warsanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu khalafna siiyo badalkiisa inuu ilaahayna siiyo ayaan warsanaynaa oo ikhwaankiisii iyo awlaadiisii inuu matalkiisa oo kale ilaahay ka soo bixiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Xaaji Daawud Allah u naxariisto ilaahay idinkiisa wuxuu ahaa nin masaakiinta inuu u kaalmeeyo lagu yaqaano wuxuu ahaa nin inuu u gargaaro xirta cilmiga lagu yaqaano ayuu ahaa. marka waxaan leenahay Allah u naxariisto waxaan leenahay mashaayikhdan Makiina khayr Allah siiyo waxa halkan waxa loo joogaa muxuu ahaa xarunta maaragtay Al-Mahmudiya oo ay ku shirayaan maaragtay muxuu ahaa culimada Makiina oo dhan ee isugu timid iyo culimada Yuufa oo dhan ee isugu yimaadeen oo janaasadii lagu tukanayo Sheekh Xaaji Daawud lagu tukanayo sheekhan Allah u naxariisto
khidmadii diinta uu soo khidmeeyeyna annagana allah nagu dhowro isagana allah ka hormari. waxaan u tacsiyeynaynaa naftaannada iyo nufuusta muslimiinta iyo ahlullaahiga iyo xerta meel kasta ay joogaan daafaha adduunka xaaji daa'uud geeridiisii. ilaahay subxaanahu wa tacaala darajadiisa caaliyaha ka dhigo. xaajiga sida laga warramayo dadkii fuqarada ahaa iyo qurabadii buu anfacay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maalkiisa uu ku anfacay. hani shaakir aha ayaa laga shanqariyey. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala innagana sabir iyo iimaan allah inaga siiyo, isagiina darajo wanaagsan allah ku irsaaqo. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaan leeyahay أحسن الله عزاءنا وعزاء أهل السنة والجماعة أينما كانوا وحيثما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. حاج داود انت كان نقانه وحوها أحد ماركت أهل خير وصالحة ومشهور كوه تقوى إلهي سبحانه وتعالى هي الصراحة iyo mashhuur ku ahaa sakhinimada, xilmiga, maxay ahayd haddii alla ku raa wanaag oo dhan. halkan waxaan ka tacsiyeynaa insha allahu sheekhana sheekh daawud xaaji daawud oo macruuf ah yaan insha allahu geeridiisii yaan insha allahu ka tacsiyeynaa. waxaan leenahay sheekha allah u naxariisto, gafara allaahu lahu, allah udama dhaafo, ahalkiisini sabarkoodii insha allahu allah wanaajiyo, samafalkoodii allah wanaajiyo. annagoo dhan oo sheekha naga dhintay nin weli ilaahi ah oo addoomaha ilaahay u khidmeeyo, allah u naxariisto, raxmo waasace raalliga ilaahi allah siiyo. إنا لله وإنا إليه راجعون. حاج داود أولا أنك معنا أن ففك عنك يدمان ولا الله كلا إخوانك أيان وتعزيننا مركب مصيبة وين ويه وحان آد وتعزيننا دمان ولا الله مسلمين إيو الذي سي شيخة إيو جماعة waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo gabagabeeyay alcalaamatul murabbi as-sayyid Sheekh Maxamuud Nuur Sheekh Cabdiraxmaan Sayyid Yuusuf Allah dhowre oo kelimadii tacsida ku lifaaqay bishaaraad ay qaar ka mid ahlullaahigu xaaji daa'uud u arkeen intii uu adduunyadaba joogay. waxaa kaloo uu sayidku fasiraad kooban ka bixiyay xigmadda ziyaarada ahlullaahiga loogu beego xilliga ay xijaabteen. waxaa caawa aan isugu nimid inaan janaazo ghaaiba ku tukano sheekheennii weligii ilaahay ahaa xaaji daa'uud cilmi cariif, allah u naxariisto oo raalli ka noqdo, ridaha ilaahay iyo darajaadka ilaahay maraatibta ilaahay uu siiyo allah u ziyaadiyo. sheekheenna xaaji daa'uud ahlullaahi fara badan ayaa waxay u marqaati kaceen fii xaali xayaatihi inuu ka mid yahay awliyada ilaahay ee caarifiinta ee saalixiinta ah. waxaa ka mid ah sayidkeenna weynaa alcaarif billaahi sayiduna sheekh maxamed raamoole sirullaahi, sheekheena murabbigeena ah sheekh maxamed raamoole sirullaahi radiyallahu anhu ardaahu. wuxuu sayidka marka xaaji daa'uud aan baranayay annagoo reesha nuur xuseen isla ah ayaan habeen riyo la igu tusay beer weyn oo jannada ku taala. marka beertii la cajaabay baa layla hadlay oo la yiri beertan ma garanaysaa cidda iska leh? maya ma garanay. markaan dhahay waxaa la yiri waxaa iska leh xaaji daa'uud ayaa iska leh. waxaan iri muxuu ku gaaray? markaasaa la sadaqo iyo deeqsinimo iyo sakhinimo ay ku gaaray. muddo kadib 15 sano ama 20 sano kadib haddana markii sayidina maxamed raamoole sirullaahi anigoo la jooga ayuu sayidina maxamed raamoole sirullaahi wuxuu yiri xalay maxamuudow waxaa la itusay oon arkay xaaji daa'uud inuu cindallaahi ka gaaray maqaamul murabbiina, maqaamul murshid, maqaamul caarifiin inuu gaaray oo marka murabbinimo murshidnimo uu istaahilo inuu ijaazadii uu bixiyo oo xerta uu barbaariyo tarbiyeeyo oo u sharaabiyo. markii sayidka saa ii sheegay maalmo kadib
ayaa sayidina sheekh cabdiraxiin sheekh cismaan sheekh xasan macallim iyo sayidina sheekh qurfaaci iyo weli ilaahay ay ku dhawaaqeen markaas loo idmay in dariiqadii uu bixiyo ijaazada uu bixiyo marka ma aha maqaamaatul caarifiin in qofka uu gaaro wax sahal ma aha waa khidmo badan oo 30 sano 40 sano soo khidmeynayay kadib ayaa marka maqaamaadkaas uu gaaray kadib uu ku sii cimriyo ilaahay ku sii caabuday oo markaas uu raacay hadigii sayidkeeni xabiibullaahi muxamed sallallahu alayhi wasallam alqaa'il afala akunu abdan shakura wadada ayuu maray qiyaamuleelka iyo taqwada ilaahay iyo juhdiga iyo sadaqada iyo khidmada fuqarada iyo masaakiinta iyo diinta ilaahay oo loo khidmeeyo iyo cilmigii oo la nashriyo lagu camal falo xaaji kama zuulin xataa laqiya allah subhanahu wa ta'ala ila ilaahu kala kulmay oo marka uu xijaabtay xijaabashada adduunka ka tagaana waa martiqaad iyo cursi iyo dabaaldeg ilaahay agtiisa laga soo dhaweynayo dadka saalixiinta ah dhimashada inay tahay daar ay ka guureen daar ka khayr badan ka fadl badan ay u guureen nusuusta quraanka iyo xadiiska nabiga ayaa noo cadiyay calayhi salaatu wasalaam adduunka way ka raaxaysteen way ka nasteen waa midda dadka ahlullaahi ee ahlus sunna wal jamaa markii awliyaha ay xijaabteen ay markaa ziyaaradoodii iyo ka dhigaan waqtigii wardiga iyo ducada loo bixinayay ihtifaalkooda looga dhigaa maadaama ay tahay waqtigii ay la kulmeen allahi khaaliqa subhanahu wa ta'ala diyaafadiisa ay galeen nabiga محمد عليه الصلاة والسلام لكل من مركا عيدودي وين فرحدود أي تهاي مركي سيدنا بلال وحجابني زوجتي سي كرباتي مرقوتي وحزناه ألا مرقتي ذا أيتري يوحي بل مجرت مرق مجرته وطرباه وفرحته ألا فرحده ذا يبوري غدا بريبا ألقى الأحبة أحبابتي لكل ما يا محمدا وصحبه نبي الله محمد أصحابتي سي يحزبي سي أيام بري لكل ما سيدنا بلال يري سيدا مركا كل جود فرحداس بيكون حجابتان أو مركا أقرصون حاجة داود مركا نوع عسين وياها اعتقاد سنهي إلهي درجة مقام فرحة أزياديو أحبابتي إيو مريدينتي تلاميذي إيو جماعاتي إيو أولادي وكتجنا وحلنا هاي أنا قدر صبر جميل الله نقصيو قداش إله نمفدنا يو بارك الله فيكم جنازتي يا إلهي ذكري كدم بحلقات ذكر إله كدم بيسي إن شاء الله وحنكسر وتنيني حاجة داود ولي الله ينكسر وتنيني عزي مقام درجة الله أزياديو نفحادي كرامة الله أزياديو raxmadda rabbi haddaba oshee sheekh xaaji daa'uud cilmi cariif ayaa ka mid ahaa culimmada farakutiriska ahayd ee wakhtigooda iyo waxdheefkoodaba u hibeeyey tabantaabada masaakiinta iyo taakulaynta daalibulcilmiga muddo ka badan haaf qarni oo uu gashaday khidmada dariiqada nebiga calayhi salaatu wasalaam kadib axaddii lasoo dhaafay ayay noqotay ayaantiisii uu la kulmay rabbigiisii uu jeclaa ee naxariista iyo nimcada badnaa waxaana lagu aasay xaruntii uu diinta ku faafin jiray oo ku taala magaalada muqdisho cabdirasaaq cali guuleed almaxmuudiya t v makina road